الحمد لله الغفور الودود، والصلاة والسلام على صاحب المقام المحمود وعلى آله وصحبه وكل من تمسك بالحبل الممدود. أما بعد، مناسك الحج والعمرة ومسألة قد بلارن شرحeedu iyo faahfaahinteeduna waqti badan ay qaadan karto. waxaase isku dayaya in sha Allah taala inaan soo koobo si uu ahad walba ku fahmi karo oo isleeyahay caamayga Soomaaliyeed iyo ardayguba way fahmi karaan qodobo dhowr ah. yaan masalada isku dayaynaa inaan ku soo ururno in sha Allah taala. qodobka koobaad waxa weeye arrin aad wada garanaysaan in sha Allah taala oo bilowga arrinkaba ah Ilaahay subhanahu wa ta'ala beedkiisa barakaysan albayt alharam la yiraahdo in loo qasdiyo oo la aado oo loo xajiyo waa rukn min arkaan al-islam waa tiirarka islaamka ka mid ah. xajkuna waa waajibaadka diineed ka mid ah, waana farad iyo rukni diinteena meel adag kaga jira way. shanta tiir ee islaamka lagu tiriyaa oo uu ka yahay tiirka shanaad. axad walba oo ku waajibay inuu la yimaadana waa fardu cayn, farad asaga gooni u saaran oo laga rabo way. midaasi mid muran leh oo hadda waqti badan lagu sii bixinayo ma aha. sida shariicadu sheegtay culimaduna tilmaameen oo in xajku uu yahay rukn min arkaan al-islam, waajibna ummadda muslimiinta ku yahay sidoo alla u yiri walillaahi cala an-naasi حج البيت من استطاع إليه سبيلا. نبينا وأركان الإسلام أغتري السيدة الروح آمن وايا الرمين وايانا مسلم معها ومديننا كما ترسنو أرنكا أيضا اسكو مايسان ما يندافن علماء وأرن اسكو وافقسنيه وحما اندافه إيا خلافه كجيرو أرنكا سمجرو. قضب كاللبات ee soo raaca waxa weeye xajku iyo umradu hadii la yiraahdo waa waajib. cimrigaada hal mar bay kugu waajibayaan. culimo badan oo muslimiin ayaa qaba umradu inay waajib tahay. adilay u daliishadaana way jirtaa. isku soo qabo xajki iyo umradu inta aad nooshahay naftu kugu jirto hal mar bay kugu waajibayaan. wixii ka dambeeyana waa sunno iyo khayr badiya la u dhawaasho kala way. xadiidkii fi sahih nabigu wuxuu ilaahay wuxuu idinku waajibiyay xajka xajiya oo beedka ilaahay u qasdiya. saxaabi baa nabi allahumma sanad walba la iska rabaa. nabigu wuxuu ku celiyay ilaahay xaj buu idinku leeyahay beedkiisa tawa xajiya. mar labaad iyo mar saddexaad buu saxaabigu su'aashi soo naqay oo celiyay. nabiguna inta hore u taagnaa oo lahaa ilaahay xaj buu idinku waajib yeelay xajkiisa guta. markii saddexaad ama afraad buu nabigu wuxuu yiri haddaan oran lahaa sanad walba la idinka rabaa xaj oo waajib buu idinku yahay way idinku waajibi lahayd idinkuna maydan awoodeen arrinka inaad ka soo baxdaan. حديثكي كلا ابن عباس أصوحوها الحج مرة فمن زاد فهو تطوع. حج هو هالمر نينكي وحكرديانا سنيسي يا خير دونوي. علماء المسلمين تو إجماع بيسو قوريين وأسكر راعين أرنكا أساقا إنو حجكو هالمر واجبو. حجك هالمر واجبها هينا ومدكي إلهي كولها سبحانه وتعالى. haddaad nadarto ama wixii Soomaalidu shardiga u yaqaanay aad gasho marka waa kugu waajibayaa waa inaad nadarka iyo shardiga oofiso.
xaj haroo kaa fasahaaday oon asixin haddaad soo qadayna qadlahaasi waajib weeye marka la leeyahay xajku hal mar buu waajibaa waa xajka koobaad ee ilaahay uu kugu leeyahay ee adugu aadan isaarin ee nadarka aan ahayn shardina aan ahayn qadda ku saaranna aan ahayn hal mar buu waajibaa marka aad la timid hadduu kaa asaxood wanaajisood hagaajiso mar dambe lagaama rabo waajib ahaan ee wixii dambe sunno weeye ijmaacaas iyo adiladaas sidaas ayay caddeeyeen laakiin waxaa mudan in la tilmaamo maalikiyada ayaa waxay leeyihiin ra'yi odhanaya shantii sanaba hal mar buu waajibayaa ninka awood dhaqaale iyo caafimaad u haya shantii sanaba hal mar baa laga rabaa inuu xajiyo waxayna u daliishadeen xadiid macnaha ku yimid oo odhanaya ninkii ilaahay wax siiyey caafimaadna uu ku bannaystay ee shantii sanaba mar beydka ilaahay aan booqanin oon tegin ninkaa asagaa waa nin ayaan daran khayrkana laga qadiyo wey xadiidku sidaasuu odhanaya xadiidkaa asagaa wadaaddaa saxiixiyey ama xoojiyey laakiin xufaadda badankood waxay leeyihiin waa xadiid baatil oo munkar ah ragga sidaa yidhi bukhaari baa ka mida ee yidhi xadiidkaa waa munkar baatil ah abu xaatim arraazi baa ka mid ah alimaam alcuqayli bayhaqi abu xaatim arraazi abu zurcat arraazi qurطubi a'imo badan baa halkaa maray bayhaqi sidaa iyagu ay sheegeen baana saxa axaadiis cadcadna wuu khilaafsan yahay ijmaac horay culummo badan mareenna waa khilaafsan yahay xadiidka asagaa xadiid sugan ma aha haddaba waxay hawshu ku gebagabowday hal mar buu kugu waajibahayaa qodobka afraad ee mudan in la tilmaamo waxaa weeye yuu ku waajibaa xajku xajku wuxuu ku waajibaa ruux muslim ah oo caqli leh oon waallayn baaliquu qaangaadh ah xor ahoon addoon ahayn awooda inuu xajiyo dadkaasuu ku waajibaa waa muslim inaad muslim tahay baa shardi ah maxaa yeelay xajku waa cibaado cibaadaadkii alla u dhowaashuhuna dad muslimiin ay ka asaxaan iimaan axadaan lahayn muxuu alla u dhowaadaa waa inaad muslim tahay kow waa inaad qaangaadh tahay waa inaad xor tahay ood addoon ahayn waa inaad caqli leedahoon maanka iyo maskaxda aadan ka waallayn waa inaad awooddo inaad xajido shantaa shardi weeye shardiga ah waa inaad awooddo ayaa waxaa ka hoos baxaya seed ku awooday inaad xajin karto waxaad ku awoodaysaa hadday xajku kaa fog yaho oo aad innagoo kale aad tahay waa inaad sahayna hesho axad lugayn karoo xajka lu ku tegi karana aad tahay ama gaadiid ku tegi kara waddadu waa inay aamin tahay oo qutaacu ariiq iyo dad kuu diidahaya inaad xajido waa inaysan kuu fadhiyin marka lee waa inaad awooddo waa inaad caafimaad qabtaa ku jirta waddadu waa inaad ay aamin tahay adugu waa inaad lugayn karto ama aad gaadiid heli karto sahaydii lagu xajin lahaa waa inaad heli karto haddaadan sahay haysanin lugna aadan beydka ilaahay ku gaadhi karin gaadiidna aadan heli karin haddaadan lugta awoodin waddadu intoo dhan ba adoo helay waddadu haddaysan aamin ahayn oo balaayo fadhida iyo cadow kuu diidahaya xajkii markaa kugu waajibi maayo waa inuu ruuxu awoodo intaasoo shay baa ku hoos naban oo ku hoos jirta waxaa mudan in la tilmaamo gabadha muslimadeed doonaysa inay xajido ayadu wadaaddaa waxay ku dareen waxaa shardi ah oo xajku ugu waajibayaa inay hesho maxram ninkeedii baa maxramka kow ka ah iyo nimaan geyin dhalasho ahaan ama sabab mubaaxa aan ku geyin weligiina aan guursan karin ninkaan geyin waxaa weeye waa nimaan guursan karin weligeed dhalasho ahaan ama xididnimo
xididnimo waxaa looga jeedaa gabadhu sodogeed maxram waa u noqon karaa maxaa yeelay gabadhu sodogeed ninka qaba aabihii ama wiilku dhalay ee islaan kale uu ka dhalay maxay u yihiin miyay guursan karaan hadday Soomaali ka soo hadho maya hadday muslimiin ka soo hadho miyay guursan karaan maya dadka noocaas oo kale ama dhalasho ahaan walaalka aabbaha adeerka abtiga wiila dhashay dadka nasab ahaan maxramku ugu ah ama xidid iyo xigaalanimo nasab maxramku ugu ah gabadhu waa inay hesho ama ninkeedii hadday ninkeedii weydo ama maxram weydo xajku ku waajibi mahayo lagamana rabo xanaabiliya waxa ku tagay xanafiyo maalikiyadu iyo shaaficiyadu iyo ayma kana waxay leeyihiin sharti ma aha gabadhu inta kale ee raggu awoodaan hadday awoodo ay hesho maxramku inay raadsato waa fiican tahay si shaki looga baxo iyo khilaaf hadday sawaydo way xajii kartaa bay leeyihiin aimada kale ee madhabka shaaficiyada ah iyo aimatul maalikiya ayagaana ila gar leh gabadha muslimadda maxramku sharti ma aha sixada xajkeeda inuu asaxa iyo inuu ku waajibaba sharti oo ma aha inta kale hadii laga helo in muslimad tahay qaangaad ah xor ah muxuu ahay aqligeedu dhameystiran yahay waalayn awoodi dhaqaale ama caafimaad ama sahay ama aamin wadannimo heshana ragay la mid tahay maxramku marka haday hesho khayr weeye hadii kale u baaqan mayso xajkii waajibka aha xajkii waajiba ku ah baynu ka hadlaynaa kama hadlayno kuwa kale sunnooyinka aha أحاديث بدن كتمت قبل مسلمات ما حجين ما سفر كرت عفوا ما سفر كرتها مال يلا مال مود أما صدح مال مود سفر مجلي كرته أيضا محرم كيدي أسن لسعنين نمان جايين بالوية محرم كلاجها الله نمان جايين ينين كيدي باللوجه ده نين كيدي مركو حكوجرة مرك الله مرة يا محرم لماذا نمان كان جايين بكتير سيء طيب وإنه الله صعده حديث أورانيسا علماء محرم كل شرط ما جواب بيكبحيان وأنا جواب معقولة وحيليه أحاديث وحيكاه الله ينصفر كجواد سفر تجارها سفر جنعسي سفر بنان مد مستحب أو سنة لكن سفر كيدو سفر واجب هدوي هاي محرم لأنتي لو باقا ماي ومحاء الدليل والحديث كأغلى حتى وحيد هذه وحي علماء المسلمين تكو إجماعين قبل المسلمات دا ودن قال هذا كو إسلامت ودار حرب وكفر نفط هذه دين تدينا أي خطر كو قشو ودين تدي حر النقوم وإذا حجاب كذي أسطورات هذه دين تدي إيمان كذي وليس لك ولنتو حقنا أي صفر كرتو inay wadanka ka safarto wadan islaam ay ku badbaadayso ay aado waa waajib maxrimna looma baahno safarka hijrada ah ee in balad gaalo oo ku dhiban tahay laga safraa wadan islaam oo diintada oo nabadgeli ah tagta lab iyo dhadigba waa ka sameeyeen bil ijmaac صحابيات فربضان يا قبل المسلمات بانا حلق النبي محمد يحلق الصحابة بكهجرة وضم قالوا أو تجي وضم إسلام أيوة وسلس عنين وح محرم بل قبله النبي محمد قبل كمدة زينب يا كهجرتي مكة أو تكتي مدينة تكتي أبيه أو تكتي رسولك أيضا وح محرم الله سعنين وإلا السعودان لبنان وأجانب كأ markay ku mudatay Makka oo lagu dhibay oo xataa lagu dilay ilaa ay dilantay oo muxuu ahaa ilma ka dilmay buu nabigu Zayd ibn Haritha wuxuu u diray saxaabi kale oo soo qaaday wayna soo hijrootay saasay Madiina ku timid aimada marka maalikiyada iyo shaafiicida waxay leeyihiin safarka gabadhu ay ka hijroonayso wadan gaalo wadan islaamna ay tagayso waa safar waajib ah وحال حكم والله معنا أيدهدين سفر والبو قبض كواجبي
sida safarkii xajka waajibka ah axaadiisan kale tiri gabadhu ma safri karto ayadoon maxram wadaninna waxay khuseeyaan axaadiista safarka aan gabadha waajib ku ahayn mid iska danaysi ah qaraabo salaan ganacsi muxuu ahaayee dana ay meel u gaadhay kaasoo axaadiista khuseeya laakiin midka waajibay way safri kartaa ayadoon maxram wadanin waxaanan oga qiyaas qaadanay yidhaahdeen axaadiistii iyo ijmaacii tusay safarkii hijrada inuu waajib yahay maxramna aan loo baahnay intaasi waa qodob marka khatar ah oo muhiima in la fahmo su'aaluhu waa bateenoo had iyo goor dumar baa ku soo wici oo hawshaa celcelin oo wadaadihii laftirkoodii baa ninba meel ku dhufan soomaaliyeed oo waana gartoodu hadda a'immada afartayd baa masalada ku kala tagsan oo laba kooxood kale ah qodob asagana muhiima in la baraarujiyo mudan waxaa weeye culammada muslimiintu iskumaysan maandhaafin inay xaaraan tahay gabadhu inay safarto safaray ka baqaysa inay khatar ku gasho cirligeedii iyo sharafteedii iyo dadnimadeedii iyo diinkeedii safaray ka baqayso in khatar la geliyo ma bannaana inay safarto شيخ الإسلام وحو يدهدا وأجمعوا على أنه لا يجوز لها السفر إلا على وجه تأمن فيه البلاء وحيكون إجماعين إن إيسان قبضوا السفر كرين سفر أي عرض يدي شرفت يدي خطر كوب قليليس وحكاها الله يا سفره كالي متك هجراد وأصغوا ويسفري دين تيدا إيمان كيدي وكدرا وحوى البابا كدب علماء إجماع عاصي مركا وحكده هذين أو سفر والبا وقبضوا أيسان كأمن أهين خطر عرض قدير شرفت هذا ما قلي كرتو وحيد هذون يكده هذين مر سفر والبا قبضوا عرض قدير كوش نبت قليو ويسفر كرتاب يده شافعية يو مالكية على خلاف في المالكية أما أنه مرنبك ما قبل waxaan leenahay xataa safarkii bannaana iyo kii sunnada ahaa haddaannu shaaficiyanahay way gabadhu safri kartaa hadday la socoto haween fara badan oo lagu kalsoon yahay weel fiican u noqon kara rag badan oo culummo ama talabatulcilmi oo aamin oon gabadha ku xadgudbayna hadday raacana waa khayr rixilaadkan xajkoo kale ee wadaaduhu ay wadaan ama dadka caamada ee ahlu khayrka iska wanaagsanba ee wadaan ee gabadhu diyaarad meeshan ka raaci ee kadib xajki tagi ee hoteelkeeda ay ku degay ummaday dhex socotee nabadda ah ee nin ku leexan kara uusan jirin safarka noocaasoo kale annagu gabadhu inay safri karto bilaa maxram la'aan muranba kama qabno soddon kaa sane un la xajin haye ee hawshaan un la wado een ka warqabo ma arag gabadh laleeyahay halkan ay ka baxdayo way soo xajidoo khatar bay la kuntaa ama waa la soo kufsaday ama caallihii baa laga xayubsaday miyaad maqasheen adduunku waa isbedelay hadda halkan qaraabadeedii iyo ahalkeedii baa gabadhi ka raacay aeroboort bay mari nabad weeye xaggana ayadu waxaa weeye waaba nin ku leexan kara ma jiro qolihii mas-uulka ah ee lacagta kaa shubtayna hoteelkaada waa inay ku geeyaan beydka ilaahay haddaad tagtana cidna uma baahnidba almuhim safar walboo waajib ah gabadhu maxram oo ma baahno baanu leenahay sidii maalikiyada ama waxaanu leenahay sida shaaficiyada safar walbo gabadhu ay ku nabadgelayso oo wehel fiican oo rag wanaagsana ama dumar wanaagsana ay wadatana dhib ma laha si loo jamciyo axaadiithii hijrada iyo axaadiithii safarka diiday xajku haddaynu nidhi wuxuu ku waajibaa ruux baaliqa wuxuu ku waajibaa ruux garaadkiisa loo caaqil ah oo wuxuu ku waajibaa ruux xora aynu nidhi addoonkii hadduu xajiyo isagoo loo idmaya isagoon loo idminba ilmihii yaraa hadduu xajiye mumayiskaa wax kala garanayay labadaaba hadday xajiyaan xajka waa ka asaxaya kumana waajibeen la soco
ilmihii yaraa ee asagoo aan mumayiska ahayn maankiisa iyo garaadkiisa uun ku filayn waliba aan qaan gaarin xaggana aan muxuu ahay garaad lahayn ee 2 jirka iyo 3 jirka oo kale ah iyo ninka waashay ee muslimkaba hadii ee majnuunka laga xajiyo xajku waa ka asaxaya adoon iyo ilmo waxaan ku raayo haday xajiyaan waa ka asaxaya hadhow adoonku markuu xoroobo ilmuhuna qaan gaarin xaj labaad baa laga rabaa midka waa asagu ma xaji kare وهذا عقل يمان وكحج يمها هي هذه اللي حجيه حج كأجر كسوى لوقر وانا ليه وحايسو هاري قضب لحاله إلا براجيه مضانو نينك أودي كرا حج كإنه أصغو اللفيس أطغى إما إنه اللغوية أما قايد كتغى أودي كرا وحا حجك أقوى واجب يا أصغى قردقي سلف تركيسا لغربا ما بنانا إن لغا حجيو awshan yaan lagu khaldamin dad badan baad bariyaan waxaad maqlay ayagoo kule hebel baan ka xajinaya waa nin nabad qabo oo socdo tamashlaynaya ruuxa hadduu asagu xajki waajibka ah baynu ka hadlaynaa xajki faradka ee lagu lahaa baan ka hadlay xaj sunnah wali kama hadlaayo haddaad adigu lafahaada ku tagi karto dhib ah kugu noqdee lugayn iyo gaadiid midnaba aad ku tagi karto in laga xajiyo ma banaano in laga xajiyo ma banaano haddii inti kale oo dhan laga helay oo muslim tahay caaqila baaliga dhan walba shuruudi oofsaday maalkii iyo lacagtii heli kara laakiin xanuun haya awgii ama waayeelnimo ama qolyo wadadaba kuu fadhiyo cadow adigu ku beegsanaya ay jiraan in maalkaada aad dhiibto laga xajiyo waa waajib marka ayada maalkaada inaad dhiibto laga xajiyo waa waajib xadiidkii khafcamiya iyo axaadiid dhowrana tusahaya wadaadana waxay leeyihiin ninkaasi xaj kuma waajibin marba hadduu asagu lafiis u awoodi waaye lagama rabo qodobka sideedaada ii raaca waxaa weeye mise waa toddobaad qodobka sideedaada ii raaca waxaa weeye ruuxii xajka awoodi waaye ka cajisay xanuun dartii ama xabsi uu galay awgii ama cadow meel u fadhiya dartii xaggana ka wacaal qabo oo rajaynaya cadowgaa meesha inuu ka kaco maradkaa inuu ka bogsado iyo xanuunkaas xabsigaa inuu ka baxa rajaynaya ma banaano inuu yidhahdo ha layga soo xajiyo wuu sugahayaa maalinkii ilaahay caafiyo cadowga meesha rabbi ka qaado jeelka iyo xabsiga uu ka baxo maalinkaasuu soo xajinaya iga sii xajiya lacag la sii shubaya hawsha ma banaano maxaa yeelay haddaba yaadan awoodin xajkii waxaad quudaraynaysaa oo rajo ka qabtaa in waa dhow ama xilli aan dheereenba ilaahay culays kaa qaadood xajido waxaana uu daliiloo loo daliishada asalka isaga ah mas'alada soomka dadkii soomkii awoodi waayey labaa sharcigu u qaybiyey nin aan gebi ahaanba soonka awoodaynin waa yeelkii aad u duqoobay ee markaa xamili waayey soomkii ruuxa asaga ee markaa soonka kari waayey xaggana aan rajo laga qabin inuu dib damba soon ka awoodo ama ka karo waxaa laga rabaa fidye inuu bixiyo ruuxa laakiin xilligaa la taagan yahay soomka aan awoodin xaggana laga rajo qabo dib dambe inuu soonka awoodo ilaahay culayska uu ka qaado ruuxa asaga laga soomi maayo fidyana bixin maayo ruuxa xanuunsan matalan ruuxa musaafirkii aan soomi karin maxaa laga rabaa markay safarka ka baxaan ama xanuunka ilaahay kaa caafiyo in ay la yimaadaan soonka ay soo qadeeyaan xanuunkii iyo tabardaradii lala awoodi waayey soon weligaana aadan ka wacaal qabin inaad ka kacdood ka bogsato fidya lagaa raba kii laga wacaal qabay inaad ka kacda ama aad ka baxdana soonkii waa ku sugaya waa kuu taagan yahay waad la imanaysa xajkuna waa sidoo kale xajkuna sidaasoo kale weeye waxaa yimid haddii la yidhi xajku waa waajib qodobaha dhowrkan ka tilmaannay ma si degdeguu ku waajibaa mise xilliga aad doontaad xajiyi kartaa waa masale iyaduna muhiima in la tilmaamo
wadaadduhu waa isku maandhaafeen laakiin hadalka inaan ururiyaan rabaayo waxaan leenahay ninka awooda inuu xajiyo ilaahay caafimaad iyo gacantiisa iyo xooluhu ku xajin lahaa gacanta rabbi u soo gasho waxaa waajib ku ah sida ugu dhaqsi badan inuu ku xajiyo sida ugu dhaqso badan inuu ku xajiyaa waajib ku ah sanad dib ooma dhigi karo 12 bilood bil ka mid ah ama 2 bilood oo ka mid ah ama 2 bilood iyo dhowr iyo 10 bari oo ka mid ah xajkuba taagan yahay waa jaanis sanadkii markuu soo maro weeye waxaad noqonna war oo ma haysid maalinkii ilaahay caafimaad ku siiyo gacantaadana wax soo geliyo shuruudii kale laga reebana laga helo sida si degdeg inaad u xajida waajib kugu ah haddaad adoo awoodi karay xajkii waajibka aad dib u dhigtana caasi ilaahay caasiyay baa tahay sida raajixa ah walidaalika imaam axmed ibn xambal wuxuu odhan jiray ninkii ilaahay gacantiisa waxgeliya tanaadee awoodi kara inuu xajiyo kadibna aan xajiin ninkaa waa faasiq makhraatigiisana la qaban mahayo odhan jiray marag la gashan mahayo wax sabab wax cillo kuu diiday xanuun kuuma diidin cadow kuuma diidin muxuu ahaa danyari iyo gacan la'aan iyo kharash la'aan kuuma diidin adoo heli kara adduunyo kale iyo xisaabo kale ku mashquuliyeen ninka asaga waa faasiq makhraatigiisa iyo maragiisana lama qaban karo imaamka odhan jiray dhowr daliil ah in xajku si degdeg ah uu ku waajibayo lagana rabo inaad u dhaqsato daliilka koobaad waxa weeye adilada guud ee quraanka iyo sunnada ku timid ee amaraysa in la xajiyo waxay si guud u keenaysaa in khayrka loo degdego waa rukni min arkaan al-islaam waa waajib ku saaran mas'uuliyad iyo xil laga rabo laga dalbayo weeye ilaahina dhaqaaq buu ku rasuulkiisuna waa ku amray muslimiintuna waa ku ijmaaceen haddaba shayga asaga inaad u degdegto oo amarka rabbiga iyo rasuul fulintiisa loo degdego adilada guud baa keenaysa amarka mutlaqa ana inuu degdeg waajibiyo waa mas'ala xoog badan fil usul marka la maraayo maxaa yeelay shareecadeennu waajibaadkeeda waa laba mid un sida ay culamada qaarkood yidhaahdeen waajib madal iyo wakhti leh waajib mu'aqad ah oo ilaahay xilli ku xidhay midka ilaahay xilliga ku xidhay xilligiisii iyo muddadiisii oon la gaarin lamaba gudan karo asagu lama gudan karo midkii waajibka ahaa in madal iyo muddo rabbigay u samayninna marka u horaysid awooddo inaad la timaadaa waajib ah imaa waajibun mu'aqat wa imaa waajibun cala alfawr bay yidhaahdaan in madashii iyo muddadu rabbi u dhiga aad la sugto soonku goormuu waajibaa bisha soon markay gasho ka hor miyaa la soomi karaa soomkii waajibka ee ramadaan maya waajib ilaahay madal iyo muddo u sameeyey oo lala sugahayo xilligii rabbi yeelay ama uu ku qabtay واجبك اللبات وميدان وقت لهين متى وحال لغا ربا يجب على الفور مرك سدا ugu dhaqso badan buu kugu waajibi waana markii aad hesho awoodiis waxay yiraahdeen waajib aan waqti lahayn oo muddo lahayn degdeg iyo dhaqsana aan ku waajibaynin markii awoodiis la helo shariicadeena kuma bajira yiraahdeen warkoodu war sahlan ma aha qodobkaasi waa sabab tusahaya in xajku uu si degdeg ku waajibay دليلك اللبادي ماشى كعد وحاوي حديثك ابن عباس تعجلوا إلى الحج يعني الفريضة فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له حجك أدك دقا وصدا أدخ صبدا أولا ماذا محايا لمتين مؤغا وحا كسو بحي دونا قبصان دونا مجيريون دونتا ملوحيد دونا ما خارق دونتا يوحي يراي الدنيا دي باكو دافي دونتا ما عدوا وضدا كون فريسان دونا ما بلاغ ليستي با لو غلين دونا بريان سيدي لو جوغون با لا اسغليا زوموغ ديارتي با لو دمه براعي كرتي انت سعوليس با ايمان كرا الدنيا لا اسما سييه مالك الهي جانسك كسييه اي عافيماد iyo xoolo ba isku ka daray beedka ilaahay u degdeg
حديث أحمد يد أبو داود يا حاكم يا ابن ماجه يا غير كتب بصوصارة حديث كوحونا فري تعجلوا إلى الحج وحال الله يسفري إن حجك اللي ودك دوا أمر كتعجيل كان إيجاب فائدين إياه محايا الأوامرتي هوري مطلقة هايدين سيتي الضبر منا لهاين حجك وأمريس إن الله كتب عليكم الحج فحجوا أحاديث ثاسية أدلة القرآن كي يوحي كليه الله المالو نمبا ورت فائدين يسي إن دقدق وخير بدن يهيبا واجب كان لو دقدق حديث كان خاص كتابطي حجك إن لو دقدق بالتعيين أسوي فائدي تعجل كأنه واجب يعني وأنا فائدة ديرادة دليلك صدحات أن لقد دقائق كانوا وحاوي قضى حج هدي لغو يشو إن تقدوا واجب على الفور سنة كأهريك واجبية مثلا حج كأهرية الحج دي كافس هذا وكاه الله سنة كحيقة هداد أود إن الحجين كرتو إن الحج دوا واجب دبن أمر دقي كرتت بالإجماع قضاء الحج يجب على الفور وحان لنا هي وكذلك أداء الحج يجب على الفور بالأولى كيق لقضيني هذه الدقدق أكو واجبي كي لقدن هي أدهان لو قدن هي يبقى كم مضوية إن دقدق لو قدت وإفانتين بانو ملاي أرنت أيضا مذاهب تأفرت أنا مذاهب باقبا وأرن حوق بدن قضبك سقالات وصوت الماميس طبنات ومسألة خطرة هذه اللي يدي حاجك دقدق بكو واجبية حقنا أدو أودا أون حجين أتصا كل مطو صادوا الله يبري ما أنت حقوق هوشنا بل أسكت دميسد حسابت أتوي حديد بل لمن كان شركة واحدا كرد حي هدات كحج أما يوحكر لون صدان بل هوشوا أتجب جبيسد هرتب المشروع عاد استاجسد مركز دور استيديو وحيابها جاجسه كدب هذا حجيد هوشها كوتوس تكدب هذا حجيد توسيدا سوى هؤلاء الدنيا فتي وحولبت مويره ما أهم حج كاور استاجيس عروت بيلكود واضح يستا أدوك سفر كي وحي كوقف في الله يا النفقات واضح يستا واد حوق بدنت واد دفدف لي إلهي عافمات بكوكم من نيستي هذا محل وحجيا وحي رب بطنين صدح كون ميلها مياه مزويك بدنتها صدح كون يشنبغ المياه أيضا يشنبغ اللي حجين هي روا أرقنا وذاتنا وحيولا أيضا $100 اللي حجين بايسون صومرت $100 هذا أنا وحي مريسا صدح يشن الكسروا يا شي حجك هذا انت نينكي هيلي كري انتو مقاي هنا عروتي بيلكودي هيلي كري اسقنا عافيماد قبا حجكو صلاحها هيا حجكو waa laga rabaa haduu dib u dhigo sidaana uu ku dhinto ma muslim dhintay ba mise waa niman muslimin oo geeriyooday muran ba ka taagan hawl sahlan hawshu ma aha hawl sahlan ma aha ahadith dhowra ku timid ninkii ilaahay caafimaad uu siiyo wuxuu ku xajiyana heli kara kadibna aan xajiin saana ku dhinta فلا عليه أن يموت يهوديا أو نصرانيا إلهي الداني كمالها ووقشي ننكا أزاقها هدو يهود نما كدنت إيو هدو كدنت مع التبيو يا كريستان نما كدنت ومحاجرة يهود يا النصاران حجين يا حجية نبي إبراهيم يتلكي أنت تجعل الرعدية أمة المسلمين تأه يهود ما حجيان نصارنا ما حجدوا يا حجية أمة محمد عليه الصلاة والسلام إيو إبراهيم يعد الرعضي نينك أسوغو هيلي كري آن حجين زيدا كو جيريودي محول مدي هاي أوغي هاي يهودي يا النصارى آن حجين ترين أو جيريود حديث الترمذي علي لقور يبقى معناها كويمي ضعف يربى كجرى حديث كاس
xadiid kala markhaati kacayo asaguna odhanaya ninkii awood xaj hela sahay iyo raaxilana hela gaadiid iyo sahay hela caafimaadna qaba kadibna aan xajiin falyamut in sha'a yahuudiyan aw nasraaniyan hadduu doono ha dhinto asagoo kiristan ah ama yahuudi ah daarimi baa soo saaray iyo muxuu ahaa saciid mansuur iyo axmed fi liimaan alimaam alcadani fi liimaan bayhaqi fi shucab iyo kayrkoodba waa mursal asaguna sanadkiisu sugan yahay xadiidka mursalka ah kii hore musnadka ahaa buu xoojinayaa maraasiil kalena way jiraan xadiid kaloo marfuuca wuu jiraa axaadiidta marka la sugageeyo awood bay yeelanaysaa ay ku faa'iidayso xukumkay tilmaantay oo ah ninkii asagoo awooda xajiyi waaya sidaana ku dhinta ama yuhuudi dhintay weeye ama waa nasraani dhinta waxaa ka daran axaadiidta kana xoog badan oo sugan xagga sanad ahaan ka xoog badan sayidina cumar amiiru اlmu'miniin radia allahu tacaala canhu xadiid ka sugan sayidina cumar waxaa ka sugan inuu yidhi man kaana daa maysaratin walam yaxuja falyamut in sha'a yahuudiyan wain sha'a nasraaniya ninkii tanaada ama gacanta wax ku haya ee ilaahay wax u sakhiray kadibna xajiyi waaya sidaana ku dhinta hadduu doono yahuudnimaha ku dhinto hadduu doonana kiristinnimaha ku dhinto bimacnaa ummaddanada ma aha weeye mar kale imaamku wuxuu leeyaho ka sugan laqad hamamtu an abcaثa rijaala ilى hadihi اlamsaar fayanduruu kula rajuli daa jidatin lam yaxuja fayadribuu calayhi اljizya ma hum bimuslimiin waxaan hamiye oon damcay buui wareegta inaan soo saaroon qoro oo ah rag inaan dira ciidan ah oo muslimiin ah raggaasoo ku wareegaya magaalooyinka muslimiintu ay degan yihiin muxuu ahaaye shaam ciraaq ilaa faris dhulka muslimiintu degan yihiin ay furteen dadka ku noolee degan ee muslimiinta ah in la dhex qaado oy weliba baadhaan leeyi hebel muxuu haystaa waa nin iska ladan hebel muxuu haystaa waa miskiin laakiin waa roonya mana xajiyi karo oo la soo qoro nin walba kadibna ay fiiriyaan nin walbo awoodi kara inuu xajiyo oon xajiin kadib ninkay helaan inuu xajiyi karo xaggana xajka aan aadanoon tegin lagu qoro jizyo koodhiyo kabara laga qaado jizyadaa laga qaadi jiray jizyaa laga qaadaa koodhiyo kabara waxaa laga qaadaa yuhuudiya nasaarada laga qaadaa xataa yucطu ljizyata can yadin wahum saagiruun cumar intaa kuma daysanin hawadaad odhan lahayd dadkaasi wuxuu sayidina cumar u doonay ama u damaaciyey inuu jizye saara sida gaaladaba koodhi looga qaado ama gabaro looga qaado inuu ka qaado waxay ahayd ganaax iyo waxay ahayd camajuujin bay ahayde ma ahayn inuu u arko inaysan muslimiin ahayn baad is dhihi kartaa wuxuu ku daray maa hum bimuslimiin kuwaasi muslimiin ma aha jizye inaan saaraan damcay waaba la awiili karaa luuqluuq baa loo heli karaa laakiin hadalkan cade kuwaasi muslimiin ma ahan meel la maryo lahay ninkii awoodi karay inuu xajiyo xaggana aan xajiin sayidina cumar wuxuu yidhi wuxuu mutaa in jizye laga qaday sida gaalada muslimna ma aha ruuxa asaga ah sayidina cumar aahaartaa way ka sugan tahay shaykhulislaam ibnu taymiya wuxuu yidhi laba goor haadaa qaalahu cumar walam yukhaalifhu mukhaalifun min aلصaxaaba mar labaad wuxuu yidhi waqad khaaطaba bihi cumaru الnaasa walam yukhaalifhu mukhaalif hadalka noocaanee adag ee qaabka u qallabsan sayidina cumar baa ummadda kula hadlay oo ku khudbeeyey saxaabi khilaafayna ma jiro waa hawl adag hawl aad iyo aad u qallafsan weeye wiilkiisii cabdullaahi bnu cumar asaguna waxaa ka sugan inuu yidhi man wajada ila alxaji sabiilan sanatan ila alxaji sabiilan falyaxuj sana
ثم سنة ثم مات ولم يحج لم يصلى عليه لا يدرى مات يهوديا أو نصرانيا ninkii xajka awooda inuu tago xajiyo buur sanadka koobaad hadduu awoodi waayo sanadka xiga ha xajiyo kii labaad hadduu awoodi waayo ka saddexaad ha xajiyo asagoon xajiin hadduu dhinta buuri lagu tukan maayo lamana ogo ma yahuudnimo ku dhintay mise kiristaannimo ku dhintay ibn umar muxuu ku leeyahay ninka muslim ma ahe laakiin waxaan ku baltamaynaa labadan diinood ee kufriga teebo ku dhintay ma yahuudnimo ku dhintay mise kiristaannimo ku dhintay baa yaa khilaaf ka taagan yahay warkiisa kale muran ma laha sidaasuu ibn umar u arkaa sidaa sayidina umar uu xukumay xaqana aan lagu khilaafin ibn umarna uu ka yidhi calina laga wariyo saxaabo kana laga wariyo ibn abbas kamid yahay taabiciin dhowra ku tagay ayaguna sidaa qaba بعض التابعين وارتدي الصحابه ايغنا سدا كتغي مساله سهلا ما ظاهرك ايات ال عمران ويتصيسا ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا ومن كفر فان الله غني عن العالمين بربي هدي آيات تري إلهي سبحانه وتعالى آدمها يؤنك وحكولة يبيت كيسا إنه قصدان وآذان ويتهقان ننك أودان الأولى هاي محل الضوادق ومن كفر بمعنى ننك تقي ويا سوى أوده محايا كفر إياه حكم كسوس درباء اسكما بيقنو وحا اسكم بيقا ومن كفر وامحي ننك أود دقاقي ويا ويا هوشا تقي ويا حقنا أن كقول هاي فلي حجك وشيء ربع إلا فلي ولا قول رقمه إلهي آدم حجك نقول فلي باللقيلي أدو أود ويا دقاق ويدي روح ضفري أو إنكريب الله توت هاي وذا ده قاركون آيات ظاهر كيدو يا أحاديث دور كاهيد يا عمر حكم كيسي وحسحابي وخلاف سنة أوسنجرين وهو الخطر سيدا درتيد علماء فقهاء قيبا كمدا وحيب عرفك كل شيء نينك اسو حجك كاركره حقا حجي وايا مسلم بما وذادو ادو محاد قبتا او حسان محال ليدهي كو شيغي مايا كوري قلبك كو تبناد هوشاس هول خطر وياها لاسك الهي مربا هدي لو مرمايو مسلمتيد يا واطاي hawsha khatarta ku gelinayso soo in laga dhiidiyo la iska ilaaliyo ma aha oo laga fogaado waxba hadda xukunka oo xasana raadinide warninkii xajiyi karo awooda ilaahay siiyo xaji hadii kale khatar bad ku jirta qoliyaha dadka xajka uu qaaday anaguna wax heshiis nagama dhaxeeyo oo ha u qaadanina inay wadaadii dhaheed baliyahan wax xajiya la yahay بلدك سوق حيو سو شبي هذا سوى كفته وهي وحرق بياسان أخلاصين قضية أركان الحج مرر بدن با انتي صفة الحج لقاها الله او لقا محاضريي ام بيعيد سو نقنقطا بل هوش ان بدل وحنو بدلينا روح مسلم كعامه ان لو شيغو حجكيسا waxa hadu ka tago uu ku buri laantina xaj uusan soconaynin iyo shayga haduu ka tago cudur daar ooga tago ama cudur daar laan ooga tago xajku u dhaawacmi xagana uu soo buraynin sunooyinkiisa waxyaabaha xaraamta la iska ilaalin kadib marka in yaro kooban qaabkii isku xidhnaana mar aan maro saasay ku roontahay waxa xajku waa ku buri waxana ku buri maayo in la yiraahdo roon in loo tilmaamo ruuxi sifatul hajj qaabkaas loo xajiyaa halka mar sida yeel wax badan ka socowa oo hadhow fooda la isla gali oo shay sunna laga yaabaa in lagu dagaalamo shay rukni oo xajki la aanti uusan soconaynin ayaa laga yaabaa in qaabka loo qaato arkaanul hajj waxa weeyaan waa afar iyo waa saddex iyo waa labo
intuba waa la sheegaa wadaadda ka badiyana waa jiraan ee cafan ka yareeyaan u jeedaa arkaanul xaj markaan soo gabagabayno inta aan muranka lahayn wixii muran ku jira waa kugu dari doonaa inta aan muranka lahayn waxaa weeye wuquufu carafa maalinka sagaalaad inaad carafa istaagto maalinka sagaalaad carafa in la istaago waa rukni la'aantii xajku uusan asaxaynin haddii laga tagana xajkaasi ma jiro lamana soo qadayn karo wuquufu carafa ee xaj baa la soo qadayaa wuquufu carafa qada ma laha hadduu maalinkiisaa ku dhaafo ilaa bacduhur baa la istaagaa ilaa salaada fajar ee habeenka musdalifa la baryuu taagan yahay haddaad maalinka carafa la taagan yahay ilaa habeenka ku xiga intaan salaadiisa subax la gaadhin xilli ka mida carafa aad istaagi weydo xajkaadi ma asixin carafana lama soo qadeeyo waxaa la soo qadeeyaa hee xaj dhammaystiran baa sanad dambe la soo qadayn karaa carafa laakiin qada ma laha carafa in la istaago alxaju carafu nabigu ka yidhi muslimiintuna arrinka asaga waa ku ijmaaceen waa rukni waxaan hadda oga jeednaa laba shay baan oga jeednaa rukni waxaan oga jeednaa laba shay shayga ka tegidiisu xajku uu ku burayo ama shayga la'aantii in lala yimaado ma xajkuusan asaxaynin rukni waxaa jira maalinkii uu taagnaa haddii aad ka tagto xajku ma asaxayo waa inaad soo noqoto ood asaga la timaado carafo laakiin iyadu maalin bay taagan tahay iyo habeen isku qoofalan intaa hadday ku mooddo ku dhaafto ku tallawdo hee waa isku dhammaatay xajka waa buray rugna asagu laakiin waxaa jiray xilligiisa hadduu ku dhaafo lala iman karo nairobi aad ku soo noqotay haddaad doontee carafo waa kow rukniga labaad waa طawaafu ziyaara dawaafka loo yaqaano ama la yidhaahdo dawaafu الrukni ama la yidhaahdo dawaafu اlifaada intuba waa la yidhaahdaa waa dawaafkee waa dawaafka beytka ilaahay kacbada lagu dawaafay lala yimaado maalinka tobnaad ee bisha dilxija bisha carafo soo ma taqaanaan habeenka musdelifo la baryo ee laga soo jarmaaday aroorta laga soo butaacee la soo maro mina intii la soo maro buurta la tuurto dhagaxyaha toddobada lagu tuuro kadibna la xiirto kadibna wax la gowraco xagee la soo aadaa makaa la soo aadaa waxaa la yimaada dawaafu lifaada dawaafka loo yaqaanay dawaafu ziyaara la yidhahdaa dawaafu rukni baa la yidhahdaa dawaafkaasi waa rukni min arkaan ilxaj maalinka asaga haddaad la iman weydo ood hilmaanto ama aad kas oga tagto ama kamaad oga tagto kadibna aad nairobi soo aado waad noqon xajkii weli ma asixin waa taagan yahay diyaarad labaad baad qaadan waa inaad la timaado asagoon lala imanin xajku ma asaxaayo laakiin wuu dhaamaa carafo wuu dhaamaa carafo maxay kugu samaysay ayadu waktigeedu go'naa hadduu ku moodo ku tallaabo hawshaadi waa isku dhammaatay laakiin dawaafu الrukni ama dawaafu الziyaara ama dawaafu اlifaada hadduu maalinkii kaa tago ood awoodi weydo ama xanuunba kugu yimaado oo intaad kooma gashay nairobi laguu sii qado weli waa kuu taagan yahay yaa iska hadlayni weli maxaa tahay waa kuu taagan yahay waad noqon waad la iman markaasaad si fiican u xalaalowday dawaafu lifaadahaas iyo wuquufu carafa inay rukni yihiin min arkaan alxaj la'aantoodna uusan asaxaynin xajkii qur-aankuna wuu tilmaamay sunnaduna way caddaysay muslimiintuna way ku ijmaaceen oo isku raaceen labaa marka soo hadhay iyaguna culays badan ka taagan yahay
labada rugni ee kale waxaa weeye as-sa'yu bayna as-safa wal-marwa iyo al-ihraamu min al-miiqaat. إحرامك هذا إنه كهالله إنه وإحرامك نيدي إناد نيستو إناد حج ذوي وحنا كهالله هذا الأعماش حج كورن لاتما ضد مد أذن كتجي حقنا أذنية إلهي درتي أذن أسو حجنا ذا سني سنين حج كو أصح ما يهدي ينسى هاي. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا إنما الأعمال بالنيات. إحرامك لقاها الله هي ركن جاء وإن الله تماضو نيدي حجك نية الحج وياه وما وقصد الحج والنية حجك إن نيست إن الحج نيسان لوجه إن إحرام كدرك لقاطو أو مضحي لبنيون للدين أو مريها أن لأقلين لسك إلاليو أو هولها سي محظورات الإحرام بالليل هذا قونوي ركنك إنه كهالله إنه ونية الإحرام نية الحج أيضا الله أنت ولا وقوف عرفة أسحين عرفات استاجد كان في عماي متك أصغنا والركن من أركان الحج بلا خلاف حجك إلا النيجتو وعرف اللي استاجو وطواف الإفادة للي مادو صدح راسي وصدح ركني أون لهين مرن آن لهي عند المسلمين وذا دا أنت إحرامك أقاتين لقاها الله إنو يهي dharki iyo hay-adii labiski ihraamka ayay meel kale ku dhufteen ama ka xarmashadii miiqaadka farqi baa u dhaxeeya madashi aynu ka xarmanayna miiqaadka iyo lamlam iyo juhfa iyo dal xulayfa iyo qarnul manazil iyo muxuu ahaa isoo qabo idaatu cirqin iyo meelaha ka xarmashadoodu in laga xidha xajka waa waajib rukni ma aha waajibaadkana waxaynu oga jeednaa shayga aan laga tagi karin haddaad awoodo haddii cudurdaar looga tagana uu dhiig kugu waajibahayo shayga in laga taga aysan bannaanayn haddii cudurdaar looga tagana xajkaadi dhaawac baa gaadhi dhaawaca xajka gaadhina waxaa lagu kabi inaad neef gowracda hadyi neef adha u yaraan u badnaan neef geel ah واجبات الحج كواسان أجدنا وانا قاردونا إن شاء الله هذا وحن أجدنا أركانتي حجك أو شيء هدي لغتك حجك وبريو هدي لغتك أصغن للا إيماننا حجك وسنة سحينين متك أفراد مركا والسعي نية الإحرام وقوف عرفة طواف الإفاضة يمحين كأفريني السعي بين الصفا والمروة إن لبضى بورود المروة الصفا أيونا رحض الله أرضه إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما أفرتاس وأركان الحج صدح ظهوره بلا خلاف صدح ظهوره وبلا خلاف مدك الضنبيه السعي بين الصفا والمروه وذا وحي كتريان حجك واجبات كيسه كان صار اركانتي حجك وهذه قرتين بان املي عمره اركانتيدا وهل هي لبا واجب اما وصدح أنك شافعية وحان لنا أركان العمرة وصدح نيادو أيضا واسكمل الأول نيادو إن حيرتها نية العمرة التي ما دكو طوافكي سعيكي إيوه إن حيرتها ما أتقاب صوته أركان العمرة مركز هدي لغا سارو حيرشدا أما قابسيغا لغا سارو صدح بين نقونيا oo inaad umrah niyeysato niyatu al-ihram ama niyatu al-umrah inaad dawaafto baytullah al-haram kacbada ku dawaafto kadibna sa'i aad la timaado inta u dhaxay safiya marwo
saddexdaa waa arkaan ulcumra laakiin xiirashada iyo gaabsigu ma rukni baa mise waa waajib khilaaf baa ku jira arkaan ulcumrana waad garateen waxa waajib iyo aynu ku kala duwayno ruknina waa la fahmaan u malaynaya waxaa ii yimid waa xajkaan u laabtay xajkii maxaynu soo maray arkaantiisii afar buu ahaa afartee weeye in la niyeysto kow carafo la istaaga labo in dawaaful ifaada maalinka tobnaad lala yimaado السعي بين الصفا والمروة intaas wadaada waxay oranayaan arkaan الحج oo dhan waa laba kaliya waa labadee waa niyada iyo wuquuf carafa kaliya wadaada oranaya laakiin adilladu wadaadahaasi waxa ka hoos baxay nusuus khaas oo meesha ku timid iyo ijmaac hortood guntamay baa ka hoos baxay afartaasi la aantood xaj socon maayo mana asaxay wixii inta ka dambeeya caanadaatay waa la daba qabtaa baa ku furan inta wixii ka dambeeya qiil iyo xogow irmaan waraabsi baa ku furan wadaada usaas ay ugu dhacday orad hadda la imaw dil la gaari karaba haduu tagay dhiig baa laga rabaa neef hadda dhiig baa idinku ma aragtaan $100 baa la iska jiidaa kadibna in wixii la gowracin kala warbaad oo ma haysid soo sidaa ma aha marka wixii inta ka dambeeya caanadaatay wala daba qabtaa weeye waxba ku furan waajibaadka xajka aanu gudbasaan hawsha aan waqtiga kaaga qaadin waajibaadka xajku asagu waajibka xajka waxaynu uga jeednaa waa cibaaratun amma yajibu fi'luhu ولا يجوز تركه إلا لعذر هذا هو الصواب تعريفك واجب الحج انتهى وشيء أي واجب كتاه إلا ليمات ولازم وضروري إلا ليمات لقى من التقي كره عذر دار الآن وإن ضن الظروف عذر دار قصبي وكارنقاج هذا ضن الظروف عذر دار قصبي وسنجرين وإن ليمات واجب ninka cudur daar dartii ooga tagana dhiig baa ku waajibi gowrac baa saaran hadiy baa laga rabaa wayasihu alhajj bidunihi waajibku marka iyo faariqa u dhaxeeya rugniga waa maxay iyo waajibku waxa u dhaxeeya midna la'aantii xajku wuu dhaawacmaa ee mabro midna la'aantii xajku waa buraya labada qodob baa u dhaxeeya واجبك كوباد ومحي والإحرام من الميقات الإحرام من الميقات ميقاتك مضشي إلهي الرسول كيسو إلى ذا لقى حرمضو إلهي أهلو شاقي وقرآنك وحالو عديي مواقيت دي زمنك أهل يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس الحج أشهر معلومات مضشي وحجك لها حق زمنك يمدد مك الله في ريو قرآن كاتلمامي مضشي قوبتا أهيد مقعدة يا مكانك يا برطة لقى دقائق أهيد نبي محمد بن فافاي صلوات ربي والسلام عليه مركا واجبك أوه الروام محي وإنها تكحرطوه تكحرمطوه ماشي ودن كات كتمت أميقاتك أهيد لون مدلين لقى حد حجك إنه هذا مركي إنه حجنا حاجين كحرنا بري أفريقيا دن يوحي لها المال وحي كحدان يري يمن يلملم ماشي الله يداد هذا دول استاجتو أضرب مرتنا واد كحرن هذه الظروف تكون سامح ويدينا دول مرتنا ماشي اللي قلت لك لقطة تكون مرتنا ديارتك ودمرك يكون بيجان يا الحرنيس هذه أطبال مرتو ودن كل حنكرن ظروف جرت أو جيدنا مركا الله سيمان توتر الله إلهي والله سيمان تاي بعد كسي دين سنية دي أقول بي الله ما أرهم هاسكو خلدي مدك نية ومحن نقص الضري إن حج للنية يستود حرطوا محي وأركان الحج قوب تاني أتكحرت اللفتر كذا قل لي كذا النبي قم مدليينا وواجب الحج هاسكو خلدين نينك حج صوح دمشنا أن ترى فصانا بيتك كنت كا وربا
khalad buu sameeyey waajib buu ka tegey waa khaldamay xajkiisii fallaadh baa ku dhacday waa dhaawacan yahay laakiin fallaadhaas waxaa lagu goynhayaa oo lagu daawey nabarkii gaadhay neef baad gowracaysaa dhiig baa lagugu leehay waynu isfahnaa ay la tahay ixraamkii oo niyadii xajki xidhashadiisii waa rukni la'aanteed xaj uusan asaxaynin goobtaa in laga bilaabo xajkoo laga xidho laga dhaqaaqana waa waajib kow waajibka labaad waxaa weeyaan dawaaf muxuu ahaa ramyu ljimaali الثalaaث saddexda buurood ee midna maalinka tobnaad la tuurto waa taqaana oo jamrat اlcaqaba اlkubraa loo yaqaano waynu gaari doonaa in sha allahu tacaala labana iyo tii horena saddexda maalmood ee dambe ee mina la jooga la tuurto soo ma taqaanaa maalinkii tobnaad iyo labiyo tobnaadki iyo saddex ninkii gaari karaba maalin walba bacda duhr oo ayada la tuurto tiiba toddoba lagu tuuro 21ka lagu tuuro jamaraadka saddexdaa in toddoba dhagax lagu tuuro oo xilka asaga la guto waa waajib asaguna ka tagiisu ma bannaano bilaa cudurdaar looga tago ma bannaano masalatu tacajul waa iloo iman doontaa iga daaya hadda igu furayna cudurdaar la'aan in looga taga ma bannaano ninkii cudurdaar la'aan ooga tagana maxaa ku waajibhaya dhiig baa laga rabaa waajibka saddexaad waa alxalq aw الtaqsiir nin xajiyey ama cumraystay waxaa laga rabaa inuu xiirto ama uu gaabsado ninkii yeeli waaye cudurdaar la'aan dhiig baa laga rabaa ninkii cudurdaar ooga tagana dhiig baa laga rabaa xajku asagu waxaa weeye axkaamtiisu iyo waajibaadkiisu iyo arkaantiisu cudurdaar iyo cudurdaar la'aan midna ku asixi maayo midna ee waxaan lagu ka qala qaaday midkaad cudurdaar ooga tagtayna dembi baan kaa soo raacaynin kii aad cudurdaar la'aan ooga tagtay dembi baa lagaaga qori intaa unbaa cudurdaar kuu taray cudurdaar la'aantu waxay kuu tartay marna dembi baa mar lagu qori maayo laakiin kas iyo kama midnaba haddii looga tago waa lagaa rabaa dhiiggii kas iyo kama kii looga tagaba dhiiggii waa lagaa rabaa ayib hadduu rugni yahayna adayba kuu taalla waaba tegey xaj isma haysaan ama kas ooga tag ama kama ooga tag xajku waa buray waajibaadkii haddaad kas ooga tagtay aad kama ooga tagtaba marna dembi baa laguu qori marna laguu qori maayo oo macduur baa tahay laakiin laba goora waxaa ku salaaxaysa hadyigii iyo dhiiggii baa ku salaaxaya waynu isfahanaan u malay waajibkii afraad soo ma amse waa kii saddexaad waajibka afraad waa almabiitu bimusdalifa habeenka tobnaad ee bisha carafo waa inaad barido musdalifa meesha la yidhahdo mashcarulxaraamna qur-aanku uu ku tilmaamay maalinkan carafo taagannahay markaa qoraxdu dhacosanaga ka soo dareera ma ah habeenka xaggee la baryaa xero guulka oon guulka meesha loo fadhiyo musdalifa meeshaas weeye waana habeenka xaj ugu dhib badan weeye waa taqaanaan baan u malay inta kaleo dhan waa waxaa weeyaan waxaa lagu socdaa si iska qabow oon culays lahayn maantao dhan baa milicdii carafa kugu dhacaysay waa la daalan yahay waa la soo lugayn adoo dhacsaalaad musdalifa ku soo daadan kadibna rabbi wuxuu soo daynayaa dhaxanaada shuqul ku lahayn wax dhaxan oo aad moodiba in ay ku sii sugaysay oo buuraha ka soo dhici baa kugu fadhiisa marka habeenka musdalifa in la baryo waa waajib weeye ninkii kas ooga taga ama kama ooga taga dhiig baa laga rabaa xajku laakiin ku buri maayo muddadeedu waxaa weeye habeenkaa tobnaad wuxuun ka mida waa inaad joogto musdelifo intaan qoraxdu soo bixin ka hor waa inaad wuxuun ka istaagto haddaad sad carafo ooga timidba aad iska seexato waagu kuugu beriyo waa khayr haddii intay meelo kale iyo duruufo kale ku qabsadeen qoraxdoon soo boodin aad un lugta saarto musdelifo dhiigna lagaama rabo dembina kuma saaro laakiin
qoraxdiisa ka soo boodin adoo Musdalifa wuxuu aan ka istaagin waa inuu isfaanay la tahay tayib labana ha isku khaldin oo waxa weeye carafo istaageedu waa bacd duhur kadib ilaa salaada subax dilaaceeda laakiin tan Musdalifa waxa weeye barigeedu ilaa qoraxdu ka soo baxaysa yaa jaanis haysataa labada jaanis way kala dheer yihiin midna waa ilaa qoraxdu ka soo boodo midna waa ilaa salaada subax oogteedii labaad ay ka dilaacdo soo wax kala soocan ma aha waajibka afraad ishanaad cafwan waa in min alla bariyo habeenaha min alla bariyo taqaanaan waa in min alla bariyo ee saddexda habeen ah tayib asna halkii oo kale baad marin habeenka wuxuun kamida waa inaad mara tagto caawo dhan isku raadad maka ka soo danaysato oo ama jaam soo gasho ama aad masquusho kadibna waagu bari aad mina ku habsato yaabadan indhaysa saarini dad dacaawo dhan quraan akhri ama soo jeed ama shaacabad ay ku taalaay ibn walba asaga cibaadadiisa iyo dadaalkiisa ay ku xidhan tahay hadda wuxuu wax ku asaxaya ama ku burayo baynu ka hadlaynaa waxa weeye mabiit mina marka waa lagu qorahaya waajibka imisan marahaya mashan baan soo sheegay masaafar kii lixaad waxa weeye xalqigi alxalq مسوان شيء كاس كي اللي حاد مركب وحاول طواف الوداع طواف كالسجوتنتا مركب وحي ودن ما يستصمين رين بيتك إلهي السلام لو دم بيسي واجبات كحجك إنها سوي مسائل دنبول اسكو خلاف سنية واسوني وواجب واجران انتاسي اسكا إلى لك سوغتك كم هطط وقتك توت خلطنت أما أتقفتنا dhiig baa laga rabaa ku dhaafin afartii horana maxaynu soo nidhi waa arkaan la'aanteed xaj asaxayna iska dhowr sunnooyinka xajka iyo waxyaabaha xajka ku reeboon maxduuraadka iyo in yaroo dareero qaabkii isku xigtay ruux xajin laha iyo habeen daba hadii rabbiga yiraahdo wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh